صدح واكي نبي قول عليه الصلاة والسلام إلهي مالك قيامها صدح لحظ مايو حقوقنا إلهي دايمون مايو ذنبنا إلهي كرف مايو عذاب كلور ضرنا وإليهين صدح جرب نبي إريدا كعلي أبو ذر الغفاري أيايدي خابوا وخسروا منهم يا رسول الله ويهو قيد وين خسارة قواسي أييه نبي الله نوشك برقاب النبي يقول المنان وكذلك أقول الله شكتب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وكلي مال فديو جبريل أكتاجي هاي أي النبي كم مغلى حاجة سمرة شنقد صوت مركاسو أرجع حي جبريل بالنبي ويدي عليه الصلاة والسلام جبريل باكويري الباب سمد وإلى لها ما أنت الله فري ما أنت كورنا الباب كالله مفرن سمد الملك باكسودا دقي ما أنت ملك قاسم ما أنت كورنا بيد موسى إمن الباب كان ما أنت الله فري ملك قانا ما أنت أبدون كيمدي ملك يبقى النبي صلى الله عليه السلام مركاسو أبشر بنورين أوتيتهما يا محمد لبن نور بانكو سغايو الهي وكا سو ديبه بشاره سبا لغو يدي امسا نور لبن نور لم يؤتهما نبي قبلك اديك هورتا نبي لبدا ري مدينه ايا سو غل مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم بلال يا سلمان وفديه بو ارك وحور كون محل لوغا باهن yahay buu hadee toole hadalku waa la dhageyso ninkan محمد يولي ninkan محمد qoomkiisii buu helay hadee toole carab baa u kacday kuwan maxaa looga baahan yahay hadee toole mucaad bin jabal baa maqlay hadalka halkaas uu macallinkii qabtay ilaahay baa adoonkaygiyo cibaadadayda iyo taacadayda iyo diinteeda waqti u samee aniguna ma aragtaan qalbiga ayaan kaaga buuxinayaa qina nafsi baahidaadana aniga daboolaya baa ilaahay ka yidhi wa illa waxaan xasuustaa bari jamaacan ka dirnay Djibouti khaarijina oo ilaahay dartu u socota wadanka Malawi la yiraahdo ku baxeen markaas loo sheego lagu yiri meeshan waxa wadankan xarab qaxooti oo dad Soomaaliya ay joogan ayaa ku taala jamaacadii halkii bay ziyaarteen looma ogola meesha inay galaan masaajid u dhow baa lagu dajiyay way booqdeen dadkii bay la hadleen oday baa markaa jamaacadii galabtii u yimid oday ordaya markaas uu adeer rayaal inankaygi ayaa gaalnimo qarka u saaran kaalay ila booqdo oo ku xajiye diinta islaamka inuu iga galoobine oo adeer adigu muslim baa tahay Soomaalina waa tahay ha inankaaguna waa muslim adiga dhalay Soomaaliin ha hooyadiina muslimad Soomaaliyeed ha noloshan adduunyada macaankeyga raaxadeeda jannadeeda waa ilaahay macrifadiisa alladina aamanu wa tadma'innu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillah tadma'innu alqulub ilaahay alladina aamanu kuwa ilaahay rumeeyay ee qulubtoodu taacada ilaahay iyo dhikriga ilaahay ay ku xasilayso ilaahay baa yidhi ala intabihu ilaahay baa inoo nasteexaynaya ilaahay baa inoo yeedhaya ilaahay baa inoo khayr miiraya walaa yunabbi'uka mithlu khabiir fas'al bihi khabiira waman asdaqu min allahi qiila ilaahay baa ku warramaayo kule war qalbigiinnaasi wax kale ku xasili maayo aniga macrifadeedu qalbigiinu ku xasilaya qalbigu salaadu ku raaxaystaa qalbigu quraanku ku raaxaystaa qalbigu dhikriga ilaahay buu ku raaxaystaa qalbigu taacada ilaahay buu ku raaxaystaa maalin maalmaha kamida Quraysh baa u timid Abu Talib markaas ay ku yiraahdeen adigan iska weynaadee gaboobe inankaad adeerka u tahay maana kala gaadhida markaas uu yiri igu yeedha markaas loo yeedhay nabiga kaleey salaatu wassalaam aqalka oo dhan Quraysh baa fadhida yaani jabaabira Quraysh oo dhan baa aqalka fadhida Abu Jahl Abu Talib Abu Lahab kullu way fadhiyaan ya Abu Sufyan ya Ikrima waxa fadhiya maaragtana Utba iyo Rabi'a iyo Shayba mujrimiintii Quraysh oo dhan baa fadhida marka Abu Jahl wuxuu arkay meel nabi Maxamed meel Abu Talib agtiisa ka banaano qof uu fadhiisan karo wuxuu isiri Abu Jahl isla markiiba halka haduu Maxamed uu fadhiisto Abu Talib xaqiisu mari teena qaadan ma yatiisa uu buuyali halkii buu ka fadhiistay markaas uu nabigu soo galay calayhi salaatu wassalaam dadna nabigu markaa albaabku istaagay halkii albaabka ayuu nabigu fadhiistay marka Abu Talib baa hadalka qaato
laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura. ikhlaasku waa cajiib, allah ina siiya ikhlaaska. man camila camalan ashraka macii hayrii taraktuhu wa shirkahu, xadiis alqudsi ilaahay waa kii lahaa. man camila camalan, qofka camal sameeya adduunka dusheeda, camalkaas uu sameeyeyna aniga cid kale igu ladhay baa ilaahay yidhi, ii shariig yeelay, camalkiisa iyo shirkigiisa qiyaamaha waan uga tegaa baa ilaahay yidhi. saddexda qof ee ugu horraysa uu nebigu sheegay sal allahu alay wasalam ee naarta lagu tuuri doonana waa saddexdee: waa caalim, waa taajir sakhi ahaa, iyo nin mujaahid ahaayoo loo malaynaya inuu diin u dhintay. saddex camal oo waaweyn bay la imanayaan. kana waa mujaahid buu ahaa, kana wuxuu ahaa caalim buu ahaa, ummaddu cilmiga berayo qaari buu ahaa, kana wuxuu ahaa maaragtaane sakhi maalqabeen ayuu ahaayo xoolihiisa u bixin jiray. saddexda camalay kun cabdan lilaahi jala wacala. 60 sanaad haysataa keliya, 60kaa sana waxaa la doonayaa inaad u noolaato sida addoonka. addoon baa tahay. haddaad 60kaa sana adduunyada aad joogtid, aad ku noolaatid addoonnimo, maalintaad naftu ay kaa dhacdeed ka baxda adduunyada, adiga waxaa ku bilaamaysa xorriyad baa ku bilaamaysa. xorriyad. nin saalixiinta ka mida kaana yasuuma الnahaar wayaquuma اlleyl, sakaraadkii markuu qabtay buu qosol bilaabay. qosol. nin xanuunsanoo qoslay ka warno sakaraada. markaas marka waa ma saacaddan aad hadlaysaa baa lagu yidhi, ma saacaddan aad kaftamaysaa ood qoslaysaa. wuxuu yidhi ohin anu waan dhammaystay buu yidhi, maanta laga bilaabaa farxadda ay bilaamaysa buu yidhi. ibn cabbaas noloshan adduunyada dhibaatadeeda mawd baa ka dambeeya. moogta waa lagugu cabsiinaya. haddaad raaxo kasta haysato, war mawdkii goormuu imaan doonaa? waa imtixaan wey. marka raaxadii kuu dhadhawi mayse. waman tayaqana bilmowt in hadamat calayhi ladaat, waa kuu ohan jiray caliy bn abi aalib karama allah wajh. ninkii mawd yaqiiniyo raaxa maba u dhadhamayse, wax kasta ha lagu dhexgeliyo. maxaad ka ogtaa in caawa lagu imaanayo? waa ma raaxa? raaxa mawd ka dambeeya raaxa ma.